xafladan oo shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiinayay 64 arday oo muddo 5 sano ah baranaya qaybaha kala duwan ee cilmiga islaamka kana barmoosay macadka Sayid bin Thabit ee xerada Ifo ayaa waxaa lagu aftaxay munaasabadu si wanaagsan loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ardayda aflaxay ayana soo bandhigay tusqa waa la waraabin wujuudaasi min aynin il xageeda ayaa laga waraabin ishaas oo aaniyatin kuleel meesha ugu dambeysay gaartay oo yool u gaaro kuleel laysa uma ahaanin lahum wujuudaasi dacaamun wax cunta illa min dariicin geedka nabaaska dariic la yiraahdo mooyaane أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقضع طول عمري بالتمني وأثنى وأوصانا بك السادة الأولى وما زلت عن دين النبي مجاهدا تقارع منحلا وتقمع من غلا وكذلك ما ورد عن السلف هذه الأمة من العلم المستنبط منهما فالموقف في طلب العلم هو الذي يعتمد في طلبه على تلك المصادر الأصلية والرفع رفعا والنصب نصبا يجعلا كيل أو كيل إعرابا إعراب كيل الاسم اسم إعراب أويل وفعل فعل إعراب أويل والدفعة saddexaad oo ka qalin jibisa macadka Sayid bin Thabit kadib markuu la midoobay madrasada Salaam ee magaalada Gaarisa ardayda ayaana sheegay inay ku faraxsan yihiin takharujkooda magacaygu waa Ciise Cali Dhicis alxamdulillah maanta madrasada Sayid bin Thabit ayaan ka takharujay waxaan soo barnay waxyaalo fara badan oo diinta ku saabsan culumta sharciga ah maanta alxamdulillah waan faraxsanahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala kadib waxaan u mahad celinayaa waalidiinteeda iyo macallimiinteeda maanta waxaan ku faraxsanahay takharujta aan ka takharujay madrasada Zayd waa Ibrahim Ismaaciil Qorne ka takharujay maanta macad Zayd bin Thabit taabic min markis Salaam alxamdulillah Allah mahad iskale iyo waalidiinteeda iyo استاذي معلمينتي dhamaantood aan meesha ugu mahad celinaa ee cid kasto igu soo garab istaagtay 5 sano inaan soo qaato culuum sharciye magacaygu waa Salmaan Cabdi Cabdullaahi maanta waxaan saa'id ugu faraxsanahay inaan ka takharujay macadka Zayd bin Thabit al-Islaami waxaan u mahad celinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kabacdina hum mahad celinayaa waalidiinteeda waxaan kale u mahad celinayaa macallimiinta ay soo bartay waxyaalaha aad u kala duwan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ibraahim maanta waxaan ku faraxsanahay madrasada Zayd bin Thabit al-Islaami anoo ka takharujayo ana arday ka takharujay madrasada Zayd bin Thabit waxaan aad ugu mahad celinayaa waalidiinta iyo macallimiinta inta igu soo garab istaagtay 5 sano inaan soo qaato waxaan u mahad celinayaa mid labaad madrasada Salaam oo noo tixgelisay inaan shahaado casri qaadano maamulaha markiiska Sheekh Mustafa Sheekh Maxamed ayaa sharaxay waxyaabaha ardaydu soo barteen wuxuuna kula dardaarmay anta waxaan xaflad u qabanay ardaydii takharujtay sanadkan waana dafcadii saddexaad taas oo markii laga soo bilaabo midowgii iyo qayb ahaantii aan ka qayb ka nahay markiiska Salaam Gaarisa gaaris ku yaala inta la midownay waa dafcadii saddexaad ilaahay waa ku mahadsan وبعد ذلك dadkii juhdiga iyo dadaalkaas bixiyay markiiskii naga aqbalay codsiga anaga Salaam ardada waxay bartaan duruusta islaamiga kala duwan ee lagu qaato madaarista islaamiga noocay noqotaba maadi iyo diiniba anaga waxaan dheerahay madaarista labada galibba waan shaqeynaa oo nisba waan shaqeynaa duruusta la qaataa wala alhamdu ardo waxa weeye wax u bilaaban yahay ayaa ka soo baxay meesha waxaan marka aan laba codsi u jeedinayaa midna ardada midna waalidiinta ardada waxaan leeyahay waxaad hesheen furihii waxbarashada waa inaad waxbarashadii sii ziyaadsataan
وحاول أما جامعاتها كشان محلقات علم زيادة سي برتان بالو باهي علم. محمد بارود حسين warbaahinta Star xerada qaxootiga Ifo.